السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waad salaamantihiin dhammaan bulshaweynta ku xiran janaalka sahanwade. waa qaybteennii sagaalaad ee tixanaheennii dariiqa guusha. qaybtii hore waxay inoo maraysay markii uu Abu Idris al-Kawlani ugu imaanayo masaajidka dhexdiisa Mucaad ibn Jamal. kadibna Mucaad uu go'a Idris al-Kawlani soo jeeday kuna dhahayo bishaarayso. Mucaad oo hadalkiisa sii wata ayaa dhahayo waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo leh Ilaahay wuxuu yiri jacaylkaygu wuxuu u waajibay kuwa aniga daraaday isku jeclaada, kuwa aniga daraaday u wada fadhiya, kuwa aniga daraaday isku booqanaya iyo kuwa aniga daraaday isku salaamaya. marka ruux kale ku yiraahdo cid walba waan ka jeclahay, ama se haweenaydu ninkeeda ku tiraahdo cid kaste oo kale waan ka jeclahay, ama se uu ninku xaaskiisa ku yiraahdo sidaasi la mid ah, waxay ka dhigan tahay inay Ilaahay iloobeen, natiijaduna noqoto inuu Ilaahay ka dhaxbaxo, kadibna ay dhexdooda ka dhacdo kala fogaansho iyo khilaaf. inta dabadeedna noloshoodu noqoto mid adag oo cadaaba. maxaa yeelay waxaa waajiba in jacaylka la isjeclaanayo uu noqdo mid Ilaahay daraadii la isku jeclaado. waxaana daruuri ah in ninku xaaskiisa ku yiraahdo Ilaahay daraadii baan ku jeclahay, haweenayduna ninkeeda ku tiraahdo Ilaahay daraadii baan ku jeclahay. Ilaahay waa igu ka deeqay oo ikaasiyay, Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa nimcada uu isiiyay. kadibna xaakimkii ayaa fiiriyay wiilka yaraa indhihiisa kuna yiri kaasi waa jacaylka dhabta ah. wiilka yarow, waxaana filayaa inaad wax ka baratay waxa uu yahay jacaylka dhabta ah. wiilkii yaraa ayaa fiiriyay xaakimkii oo ku yiri dee anigu kuma oran Ilaahay daraadii baan ku jeclay xaakimow, see wax ka yihiin? xaakimkii ayaa qoslay kuna yiri wiilkii yaraa aniga ayaa Ilaahay daraadii ku jecel. halkaasoo uu wiilkii yaraa dareemay jacaylka dhabta ah. wuxuu dareemay jacayl farxad leh, wuxuu dareemay nabadgelyo gudaha ah iyo mid dibadda ah, wuxuu dareemay jacaylkii dhabta ahaa. kadibna xaakimkii ayuu eegay oo uu ku yiri inkastoo aan kuu mahad celinayo ma awoodo inaan kaa abaalceliyo macluumaadka aad i bartay. xaakimkii ayaa ku jawaabay arrintaa Ilaahay ugu mahadnaq, maxaa yeelay Ilaahay ayaa aniga sabab iga kaa soo dhigay taasoo ku gaarsiinaysa dariiqa guusha. dhabtiina kani waa dariiqii Ilaahay kaasoo ku gaarsiinayay ee kugu xiraayay Ilaahay. adiguna waad bilowday dariiqii guusha wiilka yarow. xasuuso in tallaabada ugu horreysa ee guusha ay tahay xiriirka Ilaahay. wiilkii yaraa ayaa ku yiri xaakimkii waxaan kaa bartay saamaxaadda macnaheeda, waxaan kaloo aan kaa bartay jacaylka Ilaahay. wiilkii yaraa oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri intaa maxaa ku xiga? xaakimkii ayaa ku jawaabay waxbixinta. waxaa kale oo muhiima inaad waxbixiso. waxbixi adiga oo aan shuruud ku xirayn. weligaana ha odhan anigu hebel iyo hebel baan wax siiyaa, anigana qofna waxba ima siiyo. ogow mar kasta oo aad waxbixiso Ilaahay wuu ku qaabilayaa. haddiise aad cabato qaabilaadda Ilaahay baad weynaysaa. Ilaahay iyagana isaga ayaa wax siinaya. sidaa awgeed adiguna dareemi maysid macaanka ay waxbixintu leedahay. tanina waxay ka mid tahay ku xirnaanshada Ilaahay oo ah inaad Ilaahay daraaddii wax u bixinayso oo aanad dadka ha ku arkaan aadan wax u bixinayn, oo aad ogaato in Ilaahay adigana wax ku siinayo meel uu kaa siiyaba. taas macnaheeduna waxay tahay in Ilaahay uu kaa dhigay mid deeqsi ah. xasuusana in Ilaahay uu ku siiyey sifo ka mid a sifooyinka dadka wanaagsan oo ah in Ilaahay jecel yahay dadka wax bixiya oo muxsiniinta ah. haddana waxaan ogaanay arrimo badan oo ah aas-aaska ku xirnaanshada Ilaahay. wiilkii yaraa ayaa markaas eegay xaakimkii wuxuuna ku yiri hadalkani wuu fiican yahay, waxaana dareemayaa macaankiisa, waxaana qulubtayda ka dareemayaa inaan ku taaganahay dariiqii guusha. xaakimkii ayaa isaga oo dhoolla caddaynaya fiiriyey wiilkii yaraa oo gacantiisana dhigay garabkiisa dushiisa kuna yiri laakiin weli maynaan gaarin sirta guusha. wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay anigu imika waxaan marayaa heer sare oo maxaa ii haray markaan waxaas oo dhan sameeyo? xaakimkii ayaa ku jawaabay waxaa kuu haray filasho wacan. xaakimkii ayaa wiilkii yaraa indhihiisa fiiriyey wuxuuna arkay in wiilka yar aysan indhihiisa ka muuqan filasho wacan, yacni rajayn fiican. kadibna wuxuu ku yiri wiil yahow, mu'minnimadaadu ma noqonaysa mid dhammaystiran ilaa aad noqoto mid rajeeya oo fisha wax fiican, oo ah inaad aaminto in Ilaahay khayr ku siin doono. maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ballan qaaday in ruuxii camal wanaagsan suubiya uusan dadaalkiisa luminayn. marka aad adigu ficilka samayso sababtiisana aad la timaado, Ilaahayna talada saarato adiga oo adeecaya, Ilaahayna jeclaato, Ilaahayna camalka u kala yeesho, oo wixii Ilaahay aad kula ballantay aad oofiso, intaas oo dhan kadib ma u malaynaysaa inuu Ilaahay ku hoojinayo? wuxuu yiri waa maya, bal waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay yaqiin ku siinaayo. xaakimkii oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri
yaqiintani waa tii uu inoogu dardaarmay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taas oo ah marka aad ducaysanayso inaad ducaysato adiga oo yaqiinsan in ilaahay kaa aqbalayo. Xaakimkii ayaa yidhi, wiilkaygiiow, inta aad adduunyada joogto ilaahay bari. Baryadu waa cibaadooyinka ugu fadliga badan leh ee aad ilaahay ugu dhowaanayso. taasina waxaa inoo sheegay nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi nebi maxamed, ducadu waa cibaado, sidoo kale digrigu waa saadka mu'minka uu ilaahay ku gaarayo. digriga ugu fadliga badan ilaahay agtiisana waa laa ilaaha ila allah. sidoo kalena joogtee alxamdulilah oo dheh wakhtiga dhibta iyo wakhtiga khayrkaba. mar kasta oo shay ku asiibo dheh alxamdulilah. had iyo jeer dheh waad ka faa'iidi doontaaye. haddii ay jirto arrin halis ah kadibna aad tidhaahdo alxamdulilah, khatartaas ilaahay waa kaa dulqaadayaa. haddii aad ilaahay ka baqdana ilaahay faraj buu kaaga furayaa meel aadan ka filaynin. inta aad adduunyada joogtana mar kasta oo aad wakhti hesho waa inaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuulullah iyo alxamdulilah. waxaa waajiba inaad qalbigaaga ka buuxiso digriga ilaahay, shukrigiisa iyo ammaantiisaba, oo xiriirka adiga iyo ilaahay idiin dhexeeyaa noqdaa mid joogto ah oo mustaqiima. ayuu hadalkiisii ku soo afjaray xaakimkii. halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybteennii 9aad ee tixaniheennii dariiqa guusha. waxaan sugnaaba waa qaybteenna 10aad. adiguna nagu taageer wixii awooddaada ah. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.